waxaa weli taagan isqabsiga u dhaxeeya madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump iyo Ilhan Cumar oo Minnesota ku matasha aqalka Koongareeska ee dalkaasi Mareykanka. Ilhan Cumar oo madaxweyne Trump ugu baaqay inay iscasisho ama ay isaga baxdo guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Koongareeska ayaa saacado kadib ka jawaabtay hadalkii madaxweyne Trump waxaana qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ay ku tiri waxaad la mid tahay nacayb weliga kugu jiray oo aad u qabto Yuhuudda, Muslimiinta, Muhaajiriinta, dadka madowga ah iyo dadka loogu yimi wadanka Mareykanka. Waxaan wax ka bartay anigu dad hadalkaygu uu noloshooda saameeyay ee adigu goormaad wax ka baran doontaa. Ilhan Cumar ayaa sidoo kale aad uga soo horjeesatay nin uu madaxweyne Trump uu magacaabay inuu noqdo ergeyga u qaabilsan dalka Venezuela waxaana ay su'aal gelisay sida loo aamini karo Ilhan Omer oo loo magacaabay dalka Venezuela oo qalalaasyo siyaasadeed ka taagan tahay. Mr. Omer soo hor yimi guddiga arrimaha dibadda ee Koongareeska oo Ilhan Cumar ay ka tirsan tahay ayaa waxa ay sheegtay inaysan garanaynin sababta guddigaasi iyo shacabka Mareykankuba ay u aamini karaan ninkan maadaama ay tiri uu horay ugu lug lahaa dhibaatooyin ka dhacay dalka El Salvador oo horay uga dhaceen dagaallo sokeeye iyo arrimo la xiriira dalka Iran. Abrams oo ah diblomaasi rugcada aadna looga ixtiraamo wadankaasi Mareykanka horayna ula soo shaqeeyay madaxweynayaasha kale Ronald Reagan iyo waliba George W. Bush ayaa waxa uu muuqday nin ka xanaaqay hadalladii Ilhan Cumar. Mr. Adams, in 1991, you pleaded guilty to 2 counts of withholding information from Congress regarding your involvement in the Iran-Contra affair, for which you were later pardoned by President George H.W. Bush. I fail to understand why members of this committee or the American people should find any testimony that you give today to be truthful. sanadkii 1991 waxaad qiratay in laba mar aad aqalka Koongareeska ka qarisay macluumaad la xiriira ku lug lahaanshahaaga fadeexadii Iran mana garanayo sababo cadeyn walba oo aad maanta bixiso ay run ku noqon karto. Madaxweyne Trump oo siyaasadiisu aysan la dhacsanayn Ilhan Cumar ayaa maalin ka hor waxa uu sheegay in Yuhuud nacaybka aysan meelna uga banaanayn wadanka Mareykanka waxaana mar uu arrinkaasi ka hadlayay uu yiri And Congressman Omer is terrible what she said. And I think she should either resign from Congress or she should certainly resign from the House Foreign Affairs Committee. Ilhan Cumar hadalkii ay tiri waa mid aad u xun waxayna ila tahay inay iska casisho aqalka Koongareeska ama ay ugu yaraan isaga tagto xubinnimada guddiga arrimaha dibadda ee aqalka. If I can respond to that. It wasn't a question. That was not a question. That was I reserve the right to my time. It is not right. That was not a question. Can attack on February 8th who is not permitted to reply. muranka haatan taagan ayaa yimi kadib markii Ilhan Cumar ay sheegtay in xildhibaanada aqalka Koongareeska ee taageersan Israa'iil ay dhaqaale ka helaan koox taageerta Yuhuudda arrintaasi oo sababtay in gudoomiyaha Koongareeska Nancy Pelosi ay raaligelin ka dalbato Ilhan Cumar waxa kale oo uu sheegay in raaligelintii ay bixisay Ilhan Cumar ay tahay mid daciif ah oo waxa uu inta raaciyay in hadalka ka soo yeeray Ilhan Cumar uu yahay mid ay si weyn u aaminsan Ilhan Cumar ayaa u muuqato qof aad uga soo horjeeda qorshe walba oo uu damacsan yahay madaxweyne Donald Trump waxaan si aan la ogeyn halka uu ku dambeyn doono arrinkani maadaama Ilhan ay ka tirsan tahay guddiga arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka oo ah mid si gooni ah u taabanaysa siyaasadda madaxweyne Trump iyo xulafadiisa. Siciid Axmed Tamreyse wararka telefishinka caalamiga ah Haysta.